السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة الصوماليات ولالها الصوماليات لما أنتي سؤال هذا دافع الدنيا نجد عونية أدي شرف احترام قولي يقول هاي إن عن مانتي هل كان كورة سنة إنه فاطمة برامبور أو جبر الصوماليات جبر صبر بدن طلقات بدن إلهي سبحانه وتعالى نحسوس سمر والبا المهدة قعن كلا يكجران laakiin u dhabar adeegtay u sabartay dadaalkeedana ku jirta sidii ay ula soo laaban lahayd ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka falceliyeen oo ay u duceynayaan iyaduna ay ummadda weydiisanayso in loo duceeyo oo maaragtay lala garab galo oo la taageero oo lagu taageero ducada insha Allah billahi kariim Faadumo waa reer Sweden waxaan jecelahay bal marka hore Faadumo inaan ku soo dhaweeyo si kale laaba soo dhawow bismillah wa mahadsantahay alxamdulillah العالمين آدي هذا وما تسنتهين أديك أنت هذا اللايف كقول جرتو أنت نداوم دونتو الصوماليات وكاجم هاد علينا يا هذا وما تسنت ولالك لحرير كايلا سو حريرتي رسبكتي هذه هي سو سوى ناكسنا يعني كاجم هاد علينا يا آد بعض ما حسنت هاي كنت شرب قولي أي هاي لما كن يسقالي طبعا كأي هيد مركي فهذا المهدة جعنت هذا اللي قبل هي أو جعن كلا أوريجين دعوين يتاجروا لنا إنترنت كأحياء سعودي أو فاضمو قلب الوجود الدينيو علماء الصوماليات ومجا يسمعت كل أحد برشة الصوماليات يجودهان تدق الصوماليات انتبه ويدعينيين دعاء تي وجود بيسي هبينكي فضل قبضنا ليلة القدر وحجيدي إمامك مسجدك أبو بكر الصديق سياتل واشنطن الدكتور دكتور أحمد نور معلن عبد القادر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا هي ودمانتي وايدين سلامي وحان ربا إنان إدين سوجودي عدسي قاسو كسابسان قبر ولا شينا واللي يرادو فاطمة برامبور ولا قاتي تضبع عرورو للشيء وكنا الوضع سويدن سان فيلايو ilmaha hadda caloosheeda ku jirana la raba in la qaato oo loo sheegay baa waxa aad iyo aad runtii dareen ii geliyay kliibkii ugu dambeeyay ee ka dhageystay oo ahaa inay tagtay isbitaalka kadibna loo sheegay ilmaha caloosha ay ku wado in laga qaadan doono waxa kale oo soo jiitay gabadhaasi ilaahay say mar walba ugu xamdinayso iyo qadarka iyo qadaha ilaahay siday raali ugu tahay mar walba ilaahayna ay ugu shukrinayso waxaad dareentaan walaalayaal hooyo 7 caruur dhashay oo walacday oo foolatay oo soo korisay oo kulligood hal habeen laga wada qaatay gurigeediina mugdi u noqday dareenka ay leedahay iyo caloosheeda dareenka ka muuqanaya bal qof walba uu dareen waxaaba ka sii daran ilmaha hadda ay caloosha ku wado oo ku xanuunsato isbitaal ay ku gashay oo jirro kalena caloosha looga sheegay oo u weheliso nolosheediiba riski ay ku jirto ay gashay baa haddana waxaa la sugayaa intay ka dhalayso waxay soo jiitay hadalka ay tidhi allahayow haddaad iigu tala gashay inaan gacmaha saaro oon qabto waan qaban doonaa haddii kalena qadarka alla ayay raali ku tahay waxaan rabaa walaalayaal wakhtiga aan joogno oo fadli badan xalay anigoo aqrinaya fi suurati tawba iyo suuratu yuusuf baa waxaa ii joojiyey 4 aayadood oo labana suuratu tawba ay ku jiraan labana suuratu yuusuf ay ku jiraan labada suuratu tawba waa aayadda 51 ee rabbi leeyahay qul lan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana وعلى الله فليتوكل المؤمن هذا فاضموي وح إلهي كو قري بعد مريسا إلهينا وتلصارتي كنه جنمايا إن شاء الله تعالى آيات اللباد وآيات قدام بيس في سورة التوبة بقول تقريبا لباتن إيا السقال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم مرك حسبي الله ونعم الوكيل له إلهي بكوفلا إن شاء الله تعالى لبضو آيات في سورة يوسف وآيات سيدي طبنات مركي يوسف آبه أوايي ويلي فصبر جميل والله المستعان مرك إلهي تلسارو ونذهلي المهاجة
aayadda u dambaysa waa fii suurati yuusuf aayadda 87 ee rabbi uu leeyahay yaa baniya idhabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiihi walaa tay'asuu min rawxi illaah innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqowmu alkaafiruun. aayaddaas bishaaray xambaarsan tahay aan rabo inaan ugu bishaareeyo faatimo oo ah in sha allahu tacaala sidii nebiyullaahi yuusuf oo la waayey oo wiil yar ahaa oo loo tashaday oo laga qaatay uu gacmo badan sii maray uu aabbihii ugu soo laabtay isagoo boqor oo madax ah baa carruurtaadii salmaan iyo ikhwatihii walaalihii wa akhawaatihii baa kuu soo noqon doona in sha allahu tacaala. abshir. waxaan rabaa walaalayaal dadweynaha codsigaygu inaan idhahda habeenadan oo la rajaynayo leylatulqadrigu inuu ku jiro gabadha aan u wada ducayno asmaada ilaahay ee waaweyn aan ugu ducayno. allahuma inaa nas'aluka ya allah biannaka alwaaxidu alaxadu asamadu aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad an tarjica awlaadaha. ilaahay baa waxaan ku weydiisaa magaciisa weyn iyo asmaa'ihii iyo wasifaatii inuu carruurteeda u soo celiyo. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الدعاء سو اسم الله الأعظم وكجره بان إلهي ويديننا إنه قبض علمه هذا وسوء عليه. إلهي قبض علمه هذا وسوء عليه. إلهي ردهم الله ردا جميلا. إلهي قلبي هذا هو قبوتشيه. إلهي هو حفظيه. الله هو إلاليه. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الأستاذ الداعي الكبير الدكتور الشيخ أحمد نور إمام كسيادة الواشنطن المسجد كأبو بكر الصديق أو إسكي سهولي إمامك وهو إيش جودا إنه سن وحرير لا لهين أو أروهرا وقول مركز لقى تابو إنه أركي يدو إنترنت كسوق ليس ولبنا إمامك وهو نشر حي إمامك قوي أذك niyada wanaagsan ee faadimo rabbi subxaanahu wa tacaala ducadeeda ha u aqbalo. walaalayaal aan u duceyno ducadeedna ayay u baahan tahay. runtii ducadan waxay ku soo aaday xilli muhiim ah, xilli wanaagsan, xilli samadu ay furan tahay. khayru min alfi shahrin tanazzalu almalaa'ikatu waruux. habeen ka khayr badan 1,000 bilood 83 sano iyo bilooyin ayay ku soo aaday. si niyada daacadnimo ah walaaltinimo ah aan ugu duceyno. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in faadimo iyo ilmaheeda uu mar kale kulmiyo oo ay gurigeedii buuxay ee quruxda badnaa ee sharafta badnaa ee nuurayay in ay mar kale dib u aragto. faadimo soo dhowow mar kale. sideed u aragtaa hadalka sheekh axmed nuur? maasha allah, ilaahay ha sharfo. qof walba horta maasha allah aqli ayuu leeyahay, inta ku filanna ilaahay ha u dhammaystiro. laba qof mooye dadku kale waxay ku tamal qaadan karaan qofka walaalkiisa. qofka xaasidka ah oo aan iimaanka lahayn aniga tusaale uma noqon karo, laakiinse qofka wanaagsan oo iimaanka la tusaale u noqon karaa, iyo qofka aaminsan hooyadan ilmaheeda ayay dayacday. labadaasba tusaale uma noqon karo. labadaasna waxaan u malaynayaa inuusan ku dambeynin iimaan, waayo qof iimaan ku dambeeyo adduunka wuu imtixaan badan yahay, adduunka wuu dhibaato badan yahay, mana dhammaystirno. allihii uumay ayaana noo sheegay inuusan dhammaystirin adduunka. haddii dhammaystir uu jiro nabigeennii suubnaa salawatullahi calayh ayaa lagu waarin lahaa adduunyada. maasha allah maasha allah maasha allah, jazaaka allah khayr. ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr ha ku siiyo. sabarkaaga iyo dulqaadkana rabbi subxaanahu wa tacaala ha kaaga miro dhaliyo. ilaahay waxaan ka rajeynayaa in ilmahaaga sidii nebiyullaahi muusa oo badda lagu tuuray hooyadii iyo walaashii uu la midoobay in aad u midowdaan, is aragtaan, isla qadaysaan, isla cashaysaan, isla quraacataan, isla seexataan, is carafsataan. hooyo sharaf leh ayaa tahay, wayna kaa muuqataa. rabbi subxaanahu wa tacaala cizadiisa iyo kaalmihiisa korkaaga ha yeelo. rabbi subxaanahu wa tacaala hina maaragtay kuwa uu gargaaro ha kugu daro. faadimo, goorma ayaad ogaatay in ilmahaaga laga qaadanayo? run ahaantii horta dadku hadalla ayay isdamarinayeen oo aad u yacni ay jeclaysteen in
runta la ay gees maray qaarkoodna ay jeclaysteen anuu hadda waxaan jeclaystay maadaama hadalkayga adduunkii isku gaaray oo ay arrintayduna 10 bilood ku socoto in aan dadka muslimiinta saxda oo iimaanka saadiqa leh aysan waswaasin ogana sheekeeyo qisadeedii siday ku dhacday waayo ilmahayga markii la qaadanayay waxay joogeen oo kaliix 8 bilood waxaan dhamayn wadanka marka adiga ka soo horeeyo u dacwada bas isku maraa timaadeen maya ilmuhu waxay ka soo noqdeen halkaas iyo wadankaygii Soomaaliya aniga iyo caruurteyda iyo caruura inta ku dhalayba waxaana keenay aabahood waxaan la soo galay 4 caruur ah inta kale intaan ku dhalay xajigayga ay keenay alxamdulillah ilaa abtinaadan waa wada joognaa ilmuhuna waa isku aabe ما شاء الله ما شاء الله الله يسوكين بركة آمين marka run ahaantii caruurtu waxay ahaayeen caruur very caruur u aqli badan very good ah caruur fiican ma sha Allah run ahaantii youtube-yada labadii waxaad ka aragteen ama aaladaha laga arkay wiilkayga Salmaan iyo gabadhayda Suraya curadayda ah laakiin gabadhii oo saddexaad oo sheekadan ay ku bilaabmatay wiilkii afraad kuwaasi lama arkin kuwa kalena waa yaryar yihiin oo aalada iyo waxaas ma soo gali karaan waa gartay ha ahaato ilmuhu laba ayay kala ahayd sidii ilaahay ii qoray oo wax u dhaceen halkaan ayaan fadhiyay bartana hadda igu wareysanaysa ayaan fadhiyay waxaa dhacday habeenada kamid ah oo khamiis ah oo jimco soo galayso in gabadhaydu iskoolkan cusub ay soo degtay ilmo yar oo jajayniyaan iyo carab isku jiro ay saaxiib la noqotay gabadha yar oo 12 jirka ah ay sheekada ku bilaabatay gartay dabeedna markay ay saaxiib la noqotay ayaa xilliga qorraxda ah ay aad ilmuhu u saaxiibaan samarka waayo hooyo markaa tahay meelo badan ayaa itixaam ka haystaa waxay ku dhaheen reegalka Sweden ama sharciga Sweden cunugaada 2 saac seexi cunugaada yaa banaanka lagu arkin anigu mar ahaantaa samarkii bay ahayd aniga haddii aan maqanahay oo shaqadayda iyo aroosyadayda aan ku guda jiro waxaa joogay aabahood waxaa joogay gabar kale walaasheeda waxaa joogay ayeeyo caruurtu maynan dayacnayn oo mar ahaantaa waa la wehlinayay ha ahaato gabadhan ayay aad culayska u saartay caruur badanay ahayn laakiin gabadhan reerkaygu ku burburi doono oo jajayniyaanka ayay فرنسا صاحبة نقدين مر أهانتا وحير كرويناين cuntada guriga iska cuni jirtay guriga ka tirsaneed marka samarkiiba 3 bilood oo fasaxa zaid ilmu isku dhaxgaleen meeshaas xariirka ka bilowday meeshaas la bilaabay in si kala lagu warwareego meeshaas la bilaabay santarkan deganay in la babaxo ana hooyaan ahay ha ahaato gabadhii had dhawaataan keenay Soomaaliya ka soo celiyay alxamdulillah waxaan u rabay oo aqeedadii wanaagsaneeda iyo in ay madashmoolkayga iyo dhaqankayga iyo dalkayga iyo diintayda soo barato waa ii subisay ma sha Allah ayako dhan afarta waaweyn alxamdulillah way ii dhoorsanay ilmo ii dhoorsanay ii ahaayeen adigu un qadartan baa socotay marka waan murna waxaan ku iri jooji saacadahan jooji arrintan igana jooji gabadhii marka ma joogsan ayadii guriga ilmahan oo ajaanibkan anagoo dhan waa isku sheegna been hadaanan ilaahay oo aanana u sheegaynin bini aadan oo ma sheegi karno ilmaha ajaanibka markuu cunug la saaxiibo ilmahan bariya laga dhigaa ajaanibkan iyo anaga ilmaheena sibaaba ma og wali dhaqankii aan ugu jiro kaljalka wadanka ma qaadano meel kasto joogna hadaan qof hooyo Soomaaliya cunugaada soo dhax imaanaya waxay kula tahay wax adag ama wax dayac camal oo naftaadii baaba kule waa dayacday cunugaadi marka danka malahan hooyadeed ma soo raadsato waa la yaabaa aduu iskool ayay ahayd waxaan ku iri waxaan u baahanaa muhiimadda in aad dirto gabadhatan saytir madaxan u foonayna may baan ku iri waan diiday markaan diiday ayaan buuqi meesha ka bilowday markuu ku bilowday iridda oo halkaas ayaan joogay waa soo baxay waxaan iridii aan furay markaasaan ku iri wadanka luuqadda ah maadaama gabadha jajayn tahay iga bax soco gurigiina aad maan dhahay
adiguna kaala cashay dabeedna gabadhaydu waa xanaaqday anigana carruurta yaryaaraa baan casho siisanayay al saaciibar habeenimo ahayd jikadaan hore usii galay tii way murantay tiina maba ay bixin iridday u taagan tahay gabadhii dabeedna gabadhii inay baxday bay gabadhaydu curaddaa ii sheegtay mar laga joogo 20 daqiiqo camal saan ku iri maxaa dhacay aaway kaalaya adinka waaweynna cunteeya soo bax heblo iyo heblo say tiri hooyo ma joogto oo maba rabay tiri noloshaan iyo saaxiibada ii diida iyo farii haydkaygaan rabaa iyo nolol beriyaan rabaa صح niyo waa igu adkayd cunug gabadhaas maadaama waddanka daagiska iskool iyo ka dhigatay ama xanaano ka dhigatay ee xilli 12 jiran ahayd ma is dhehaynin waxaana dhacay gabadhii waa lala orday tii inaan soo raadinayo ogtay guriga iga koreeyo waaye tu kaloo carabo ay saaxiibo yihiin oo Iraaq ah ayay u sii geysay guriga lambar dabaq 8 lagu qarsaday 9 habeenimo markay tahay waa gabadhaydii booliiska loogu wacay aniguna inta dhan inta ka waay aan xaafad Soomaali deganta wax yar iga fog aan u cidirsado oo aan raadinayaaba waaban yani waan naxay waxaan isleeyahay way carootay oo kale waad ka xanaajisay maadaama aad saaxiibadeed ka burisay lana murantay صح alxamdulilah fadli rabbi wixii ilaahay qoray ayaa dhacay dabeedna gabadhii waa la shitaariyey waxaa yimid booliis guriga waxayna ugu imaadeen aniga iyo hal wiil ah baxnay wiilku waa soo celiyay mar gabadhii hal saac la ahaan ku yiri hooyo hee 2 saac bar habeenimo maraysaa bax adigu seexo iskool baad bari leedahay aniga baxay dariska oo wax yar iga fog oo Soomaali ayaan u cidirsadoon aaday waxaa la wacay ehelada nala degan oo ehelkeena manila joogta maya niyo aad bay igu adkaatay arintii alxamdulilah dabeedna booliis ayaa orday ayaa yimid 3 saac habeenimo say dadku u yaqaan dadka qaarna 9 habeenimo guriga markay yimaadeen aabihii oo fikirsan oo halkaas irida taagan booliiskii irida iska soo fureen way imaadeen waxay dhaheen aaway hooyadii erayga ugu koobaad ay booliiska dhaheen wuxuu ahaa aaway hooyadii markaasuu ku yiri way maqantaa hooyadii gabar yar ayaa naga maqan ani markuu wuxuu ii mooday xaajigayga inaan telefoon dirsaday oo aan iri booliiska cunugta ii raadiya raadinta cunugta ku maqanto yiri hooyadii ma joogto saasaa jirto anigana ilmihi kama tegi karo ilmo yar yaraa guriga jiif adigu gabadhii weyneed oo curadda eed oo 15 jirka ah oo hadda 16 galayso agoosta haddii ilaahay u qadaro cimri dheer iyo cibaado suuban meel bay joogaan carruurteeda allah ii allah ii xafido اللهم آمين markaasa law kiciyay kii kuwii u yaraa bis iska daayeen 4 tirooronood ay kacsadeen aabiyaa la weydiiyay aabihi waa la dhageysan waay ilmiyaa la kacsaday ilmiyaa sidii warku u yahay ay u sheegeen wax gacan qaada ma dhicin baa la yiri dhibaatana ma dhicin saasa dhacdaa lagu yiri way aamineen ilmihii way iska tageen booliiskii alxamdulilah ilaa abtinaadan oo 10 bilood laga joogo booliisna ma dhibaateen nalama xirin ilaahay baan ugu shukrinayaa rabbiga subxaana qaadirka ah waxbaa ka daran maanta gurigii oo maran bisan dhex fadhinaa laakiin sidii aan u deganahay sidii nimcadii inoo u haysanaa sariirahoodii aan u fiirsanaa alxamdulilah adu wax dhiba booliiska xagiisa igama imaan malala ii geysan الله أكبر bes booliiskii baan bariyay waa codsaday waxaan ku yiri please aan arko waa ani amarkaaga ila noqotay cunug ilmahaygan ilmo oo fadaq ama ilmo oo yani aan ka filaa ilama ahayn ilmo hadal atee siiba gabadhaas subxaanallah gabar yar oo fariido aqli badanayd ilmahayga aaladda snapchatka laga yaqaanay ilmo waxay ahaayeen aniga maadaama aaladda aan snapchatka aan qof caana ka noqday oo muddo yar weliba aan ku caan baxay oo maxay ahayto aroosyada aan tumayay oo aan Scandinavianka dhan tagay oo yani aad aan u haysto dad 10 milyan camal ah dabeedna qof waxaan ahay yani alxamdulilah hooyooyinka muuqdo soo waxa markaan joogo markay baxayaan ilmahayga markay baxayaan xasbunallahu wa ni'ma wakiil ayay ku bixi jireen ilaahay baa marqaati iga waxaana iga marqaatiya snaapka dadka igula jira oo intaasoo milyana bes marka ilma aan xatii arkaarta ku dirin ma bixi jirin iyo hadallo kale oo hadal qabsiyo kaftan iyo ahaa oo xaajiga markuu basku aadi jiray meel hal saac u jirtay aan quraacda u karin aan u diyaariyo dadka qaar soo qori doono marka alxamdulilah waxaan ahaa qof nolol haysto alxamdulilah oo qurux badan ilaahay baa mahad iskale wixii ilaahay ii qoraan ku qabiyoobay
wax bini aadan ii keenay ma ahan cunugteedana dembi kuma leh cunugtan kalena dembi kuma leh wax yar oo wada hadal ayaa gurigeyga dhan ku burburay alxamdulilah marka ilaahay subxaana watacaala aan qalbigaaga hadajiyay haye bas waa barya booliiskii wallaahi booliisku isneel maasha allah waa dad wanaagsan way iga yeeleen aan arkaa iri ama kaaga ila noqoto aniga maana filaynin ilmo saas u waalan maba dhalinba marka cunugteedii arkay ayaa cunugti waa la booshgareeyey mar dambaa maqalnay tii kalaa ii sheegi doonto waxaa lagu yidhi ka tag iyo nolol fiicana hele iyo ma raba dheh way diiday marka hooyadaa kuma dilin soo xaro baa la yidhi dilna kuguma yaalay booliiska markay baareen say tiri gurigaan ma rabo saa lagu yidhi gabadhaadaa ku diiday waan qaraacma aad ayaan u qaraacma xooga bes markaasaa yidhi aan arka biliis anigoo gabadhii ina ay iga ogolaadeen booliiska oo soo orday jidka meesha ah highway jidkeena highwaygayga yarkaa baa cunugtii oo naag haysato soo shaala oy salaaxanayso hooyo likatiilandhaa nasiibkaadi miyay noqotaa iri maanta nasiib wacanaa iri in aad nolol kale iyo guri kale anigu waa qaraaca markaasaa wallaahi run ahaantii dadku haddaa samartay ilaahay markaas ayaan samray oo naftii hal mar ay qabowday isla markaasaa miir iigu dambeeyey ambalaastaana laygu qaaday alxamdulilah waa wareeray isbitaalkaa leegeeyey kabacdi waa soo noqday gurigeygaa kusoo noqday ilmihii kale wareysteen kabacdi ilmihii kaleba haddana iskoolaadkii ka qaateen meelayba usoo diyaarsanayeen ilmaha kale waa cabsanayaan wax ma sheegi karaan iyo ilmaha kale in la dilay ka cabsanayaan iyo booliis iyo sooshaal iyo haddii ay sheegaan waa la dilaa iyo bay tiri bay dheheen carruurtii kale bay iga xoogeen qaar gacantayda ay ka xoogeen oo saddexda yaryarkaa gacantayda ayay ku jireen saddexda waaweyn iskoolka ayay aadeen subaxaas xanaano maysan lahayn odaygayga waceen faadimo iyo carruurtaas guriga ma joogaan ha noo imaadaan intaan la gaarin xilli ayay qabsadeen marka 10kii subaxnimo intaan la gaarin ha noo imaato ayay dhaheen alxamdulilah anigana marka nin culays badan baa isarnaa sariirtaasaan jiifay maamo oo maamadayda oo carruurta ila haynaysay baa ii timid gabadhayda ani markaan waa aada u qaraacmay ilmuhuna inay joogaynin dareen ahaan waa ilaahay waa igu tusay laakiin waa iska deganaaday alxamdulilah saa cuntadii aa cuni waay subax ilmaha la qaadinayay ayaga quraacdooda waa u kariyey maamadii iyo anagaa wax karsanay kiliyar runtii waa cuni waayey waan walwala ilmahayga waa la qaadanaa afkayga kasoo bixi waysa marka maalinta ilmahayga la qaadanaa iyo maalinta ka horreysa anigu afkayga waxaa laga joojin waaya ilmahayga waa la qaadanaa ilmahayga waxay dhaheen hooyo haddana maanta iskoolkaa nugula yimid saari waan ila qaadanaa way ooyeen marka runtii dariska qaaraa ila jooga markaatii ahaa maxaa u dhehe maya ana aniga wax waa qaban waaye waa dhaqaaqi waaye bes salaada oo keliya baan tukadaa waa aamusanahay shoog baa igu xiran subaxii markii saas ay dhacday la ii wacay islaamo taagtaagan iyo islaamo fadhiyaan ugu tagay ilmaha dhakab layga siistay gacantaydaa lagala baxay gabadha yartoo 3 jirka iyo cunuga 4 sano barka jiray iyo cunugii kale oo ka weynaa 10 jirka ahaa markii laygala baxay baan laygu yidhi hadda ayaan ilmahaada qaadanaynaa waaban haysanaa waqti xaadarkan kuwii kalena iskoolaadka waa ka keensanay alxamdulilah waa naxay bes waxaan ilaahay baa ma hadda iskale afkayga ilaahay wuxuu ku aadiyey alxamdulilah ereygaasaa marka miirkayga dhanba ereygaasuu ku xasilay alxamdulilah markaasay waxay ninka turjumaanka waxay ku dhaheen maxay ka waddaa alxamdulilah waxbaan u sheegaynaa markaasay inaan dagaalamay inaan dhaqdhaqaaqa miyay rabeen ma aqaana dad badan ay saas ku suubiyaan markaasaa wuxuu yidhi way xamdiyeysanaysaa waqti siiya markaasay hadalla jaajaasa iyo waxbay yidhaahdaan haye guriga ma aadaya guriga waan ka cabsanaaye ninkii basaa joogaa eriye maxaan suubiyaa guriga cillada 4 derbi inkee waa la ii bedelay ereygaas markaasaan iska aamusay yacni guri cidlo ah aabbihii bas dhex taagan yahay 4 derbi miyaan la sheekaystaa baan ku yidhi marka waxaan u weydiinayaa rabbiga subxaana qaadirka gabdhaha ku dhici doonto way ku dhacaysaa arrintan waa wax sharci dadkan u degan gabdhaha ay ku dhici doonto dad naxariis leh gaalo bini-aadinimada taqaano inuu ilaahay ku aadiyo aan rabbiga subxaana qaadirka u weydiinaa hadalkii markay igu soo dureen ayuu ninkii turjumaanka ii dooday ninkii turjumaankaa qaraacmay oo qayliye sidaan waa qalad oo yidhi inaad waashaan miyaa rabtaan maxaad hadda suubinay hadda maxaa qabanay hadda maxaa ka dhacay
الحمد لله الحمد لله أنا مركز waxa aqligeyga soo galay inaan salaad tukado inaan shukriyesto oo dhaho waxa ogaa camalay ilaahay inaan iraado alxamdulillah way ii diideen inaan tukado runtii 2 saac la igu dhaganaa hay ninkeyga haweenan ku dhahay waa diiday way wacday adi dambi kuma liid waa wacaya baabuurka ayuu shil ku galayaa bas uu saaran yahay biliis baskiyo markaas baranay hal saac meel noo jirto jiray biliis haween way iga diiday way wacday marka si naxariis daran ayaa la kulmay alxamdulillah laakiin ilaahay baa i caawiyay quraan baa la isaaray rabbiga awoodda leh baa i qaboojiyay iimaan qabow ah oo itusay inaysan dadkan igu diin ahayn buu ilaahay geliyay ilaa abtinaadana way igula dagaalamaan shib baa iska maxaa qabanay wax walba su'aal ba yani hadalla igu su'aalan marka saara alxamdulillah wixii ilaahay qoro wixii dhaca waa u jeedaa maxaan ka qaban karaa maxaa xigay markaas kadib ilmihii xoogii sharciga xoogga lagu qaataba waa la qaatay ilmihii maxaa talaabahood qaaday adna waxaan qaadnay wixii horta aniga marka layla dadaalayay iyo aabihii oo layla tacaalayay oo aad la iiga cabsi qabay inaan xagga maskaxiya noqdo ama aan wax u nugu dhacaan annaga horta familkii oo dhan soo orday dadkii Soomaaliyeed soo orday wax ii kala haran mala ummadii Soomaaliyeed oo Sweden joogto ma sha Allah quraan duco adduunka dhan isla qayliyay alxamdulillah quraan sidii la ii saaray markaas ayakii ama maxkamad naga afka naga soo galiyeen gab ilmayni ma siinayne macsalaamaha sharciga xooga ku haysanaa soo dooda taas mi aha okay waa iska aamusnay afar isbuuc markii sugana la dhahay maxkamadii aan tagnay maxkamadii koowaad way nooga guuleysteen maxkamadii labaad inta la gaarin oo 2 bilood dhan tahay oo caruurtii xakaarmeen ayaa wiilkayga weyn wuxuu ogaa ina aalada ku jiro ayuu uu isoo raadi wuu ii waayay markii dambe muuqaal ahaan aalada YouTube-ka iga arkay asagina waxa loogu sheekeeyay hooyadii way waalatay wadanka way ka tagtay aabihiina sidoo kale ma in hayn kara awoodni lama hayo waxa ku qasbantaa meeshaan inaad joogto haddii aa meeshaan ka tagtana meeshaan meel ka sii xun ayaan ku geynaynaa caruurtii lagu yiri caruurtii oo run ahaantii isku qasmatay mar alla markuu YouTube-ka arko YouTube-ki soo fariistay oo sheegay in dhibaato uu lagu hayo in saas la yiri waa ku hadlayaa markaas mise Soomaali ya ma Swedish ku hadlayaa mise Soomaali markaas Swedish iyo Soomaali Swedish oo aad ugu dadalmaayay Soomaaliga wuu dhibsaday Swedish ku dadalmaayay marka waaba la wada sarifa waa la wada fasirtay carabtii aa fasiratay Soomaali kala aa fasirtay gabar Ingiriiska joogto qeyr laasi abaayadana fasirtay adduunka dhan isla qayliyay adigu صح bas alxamdulillah maxkamadii labaad iyo videogii wax yar u dhaxeeyay way ansixiyeen ilmihii ayadana maxkamadii labaad oo nooga guuleysteen annagoo sidii u aamusnay oo rabbi talo ku filan iska fadhiisanay ayaa maxkamadii saddexaad hadda sidaan u sugeynay ayaa waxa maxkamadii saddexaad looyaradii ay tuseen macala maxkamadii labaad waa tuseen waxay ku dacwoodeen naagtan ayaa social media fadhido ayada ayaa ilmaha annaga noo gacan dhaaftay naga daaya camal waan qaraacmay aad ayaan u qaraacmay markiina la xaqiro waa iska aamusa maxkamadiina ansixis waa la yaabay ilmo ooyay sharciga Sweden waxa cunuga in la dhageysto waa la iska aamusay tii saddexaad hadda markay dalbadeen ayaa la yiri labadan cunugo ooyay oo la waalidkeena u baahanna dhibaatadan ma la xariirsiisay maya war naga celiya la yiri kiiska socda hadda kiiska sidii lagu soo celiyay maxkamadii ansixiyeen aan u baahanna kiiskan ma dhameystirna cadeena ma u heystay in ay soo bilaabaan marka waa ka war sugaynaa hadda ilmihii ay noo bilaabeen labadii waaweneed inay first time ay naga tusaan markaas ku dhawaad 8 bilood ama 9 bilood FaceTime baad ilmaha ka aragtay bisha waxaan arkay ilmahayga 2 mar oo kaliya 10 biloodana hadda afka la galiyay 2 mar labada waaweyn leena arkay oo ayaguna is caawiyana ilaa hadda dagaalama ay rafaadsan ilaahay subhanahu wa ta'ala kaaga soo qaado aamin kubi ka yaraa ilaa hadda shanti kala dhinteena nooleena war laga ma hayo
إنا لله وإنا إليه راجعون. marka kuwaasaa hadda maxkamaddii socoto niyow anoo tii la yaaban ayaa maxay ahayto biqadrillaah aniga ilaahay calooshayda baby yar ku beeray ما شاء الله. aan ku xanuunsaday aad ugu rafaaday naxdintii dhagax wax la dhaho iigu soo booday gaal istaag rafaad weyn aan ka maray alxamdulilah baby yar ah haddana ilaahay meeshii xanuunsanadow ilaahay wax kale kusii beeray alxamdulilah wax ilaahay nagu samarsiinaya waaye rabbiga subxaana qaadirka waxaan anaga wadana maahan marka waa daadii sideedaad. haa fadli rabbi waxaan u jeeda gabar yar baa sideed ma dhali kartid yaa ilaahay baa ku siiyay alxamdulilah. halaaks annaga soomaaliya isku guursanaa halkan maana isku guursananiyo odayga ما شاء dad الله. gar ayaan ahayn markaan isguursanayna alxamdulilah ما شاء الله. 2014 dhamaadkeeda ayaan isguursanay marka 2005 maya 2004 dhamaadkeeda isguursanay 2005 gabadheena curaddaa noo dhalatay ما شاء الله. 10 sano buuxinayso bisha 8aad oo 16 insha Allah galayso marka alxamdulilah xilligaasaan isguursanay xilli xatii caruurta kala rafaad badan aan ku dhalnay qax iyo madfacyo gubanay ilaa iyo qaxootiga Kenya la sii ordaay ma ogo sida lagu dhalay iyo sida lagu kariyo ma ogo markaas la iska kaaleeyahay mas'uuliyad oo inay ma qaadi kartid mas'uuliyad aabanimo marka waa adigu ilaahay wuxuu qoro wax walba wixii lagu dhaho dhagtaan ka bixi waay looyarada idii doodaya ma looyaro adinku aad doorateena mise waa looyaro la idii dooray? no annagaa doorana annagaa marka hadda saasaan kiiskani niyow cadaabtaas ugu jiraa anoo tii la yaaban oo ilmihii lay tusay oo waaweynaa ayay haddana isla cunugan naagtii aan u tagaayay dhakhtaradda ahayd la xiriirayay bay wacday waxay tiri birtaada maxaa waxay tiri caruurtii hore dhali jirtay barbareen maad haysan saana ahayd markaasaa birta ma xamili karaa ku dhahay dhagax ayaa jiro dhagaxaasaa igu soo booday markaan cuno gaasa igu kacay waa dhibaatoona cuntadana hal waqti ka badan ma cuni karo oo xameedida waa dhagaxa wuxuu oo fiishinaysa ama yani uu brinaysa oo cunto badan iyo awood badan ma haysto markaasay oroday tiri saas miyaha maxaa kugu dhacay naxdintaasa igu dhacdo ilmaha layga qaato naxdintaasa arrintaas ku dhacday okay tiri waa lagu caawinaa bas markaasaan iri okay anigu marka daawo iyo inay wax ila raadinayso mar ahaantaana birta oo la isku shubo oo faleembada ahaa aan moodayay caawintayda oo aan ka rabay way oroday kuwii ilmaha xooga ku haysteen yaryarka kuwii haysteen bay ii wacday labadii naagood meeshiaan imaanay naagihii way ii wacday naagaha meesha igu sugay haye heblihii heblo waaye haye caruurtaaday kala haystaan haye oo heblihii heblo waxay dhaheen corona jiro islama shaqaynayne miye ani marka waxaan moodaaba in gartaydu ay galayso ay leedaha hooyadan waa welwelsantahay ilaa nin loo tashto ilaahayaa kuu maqan warba maba ka hayo say tiri waa kaasaa heblo way welwelsantahay heblaa nastoo wacday haye waa maxay ka welwelsantahay guriga riskiga jiray ama guriga dhibaatada taale cunugan miyuu ku kori doonaa miyaa la geyn doonaa laa ilaaha ila allah muxamad rasuul yaa baan ku yidhi saasaa jirta subxaan allah okay aan ku dhaha ani mar ahaantaa go-aanaan gaara maadaama aan arkaayo dayac badan oo cunsurinimo badan oo haddana qof bulshadii magac ka dhexla aan ahay oo la ii sheegaa in xaquuqdaydii aad loogu tutumanayo oo yacni degmada aan deganayo xaquuqdayda aad ugu tutumanayso oo sharciga sweden oo uusan noocan qabin ayaan waxaan isiri bas kuwaan insha allah ka tasho ilaahayna garab weydiiso okay aan dhahay waxay tiri qofkan kalaa ku caawinayo u tag waayaha iri abukaatahayga iyo fuulmagtahaygaan la hadlay arrintii aan u sheegay ma dhici kartay dhaheen waa dhacdaan iri saas aana jirto okay aa layiri haddana maalintii ku xigtay naagtii kale itiriyaan u tagay ma ka salboobin waa ka salgaarayay weligaana waxbaa diidayaan lagu dhihinaa islahaa ilmahaygaa iga maqan naagtii markaan u tegay waaba naagaha la sheekaysto dadka caawiyo maskixiyan dadka u xanuunsan dadka caawiyo way ii wacday way isku kay qarisay markii hore markaas way yaabtay horta
sidaan aan ayaan ugu tagay alxamdulilah way naartay waxay sugaysay saa anuu is iri qof kala socdo ama hooyo aan barnuuraynin oo nolosha ka dhacday iyo wax saasay sugaysay maadaama intaasoo bilood maqan yihiin say waxaa irahay say wax u dhaceen bal ii sheeg sidaan aan kula hadlayaa u sheegay saasaa jirto xaquuqdeedii degmadan waa ku tutumatay adiga Sweden raadiyowgaysa iyo waxaas ma iga caawine arrintan haysta in la soo dhex galo gacan saddexaad ma soo dhex gashaan u baahanay degmadan maadaama dawladdii i keentay aysan ogeyn dhibaatada ay haysatay oo waxaan degmo bes ay tahay markaasay tiri maya hee anigu qof maskixiyan u waalan oon caawiyaan kuu malaynaya saasaana la igu yiri warqadan oo naagtu saasay igu soo qortee qof xaquuqdeeda raadsanaysa iyo qof ilmaheeda raadsanaysa iyo qof nool oo noocaana inaad tahay ma ogeyn iga raalli ahow mana ku jiro baabkaada waxaan ku yidhi waa inaan dacwoodaa marka haddaaba kii dhakhtarkana saan leeyahay tii meesha fadhisay oo degmadana saan leedahay dhib aad adinka dhan weerar nagu haysaan waxaa idhi arrintan waa arrin inaan adduunka gaarsiiyo u baahan insha allah ilaahan u cidirsanayaan ku yidhi waa in arrintan la soo faragelin say tiri anuu dacwo kuma jiro anuu shuqul kuma lihi lambarkaygaana abukaato iyo waxaas ma siinaayo ha igelinin baddaan anigu ha igelin bay tiri haddaa adii rabto waa ku caawin lahaa anu qof maskixiin aan ula sheekaysto wixii dhacay iyo wixii dhici doonaan kaaga sheekayn lahaa waa mahadsan tahay iriya naagtan idur cunugayga weysatee anigu i weysatee kombyuutarkaas nagu weysatee dhiiggayga dhacay iyo dhiiggayga fiican iyo ogow miyaan iri mase waxaan iri meesha waalida ii dir iyo meesha naagtii uura yaratay ilmaha laga qaad tan iyadaa idilaysaa iri haddii si loo fiiriyo naxariis darrada ay meeshaan taalaan ku dhah adaan ku weydiiye hooyo intaasoo bilood ilmaheeda ka maqan yihiin ilaahayna ubad kale ku risaaqay wadnaheeda haddayba dhaawacdeen maxay ii tirtaa ira qoftan seese ula shaqaynaa see u aamina waa dareemi karaa waa dhib soo sidaas maan ahaa okay aan ku dhahay waa iska soo tegey bes naagtu waxay tiri dee qof wanaagsanoo caafimaad qabo okay aa tahee raalli ahow iga raalli ahow macsalaamo miidiyaha ma tagta adigu joornaalka maaragtay TV-ga iyo marna ma isku dayda inaad la hadasho degmada aan joogno miidiyihiisa joornaalkiisa waa tagnay wayna diideen maadaama degmo 70% reer habtiyo looga cunsuriga looga codeey marka waa meel ayada dhan tuulo yaroo xabsiya waa meelaha gobolada kale maxaa u tagi weysay oo ama xataa miidiyaasha kale wakiilada u ah oo kaleeta haddaan raadinayaa haddaan ku tala jirnaa markii hore rajada aan qabnay maxkamadaasna way ahayd laakiin hadda xaquuq daradan iyo weerarkan hor leh oo ama aniga lay waalayo oo markii labaad ay waali ugu tilmaamayaan ha ahaato ay rabaan inay iga helaan cadeen iyo inay cunuga yarka meel cilaa ka qaataan aduu hadda iyo koowa orod nagu jiraa insha Allah haddii rabbi subxaana qaadirka uu noo saqiro wax kastana waa inuu horta ilaahay dee wuxuu kula kulminayo qof bini aadana oo kaa celin karta ma leh waa gartay adiga haddii lagu soo eedeeyey kaba soo qaad adigaa lagu eedeeyey aabbihii markaas guriga ka maqnaa bas ayuu jiray aabbihiina xuquuqda aabbanimo ma laga qaaday hal dhib ayaa waddankan jiro halka dhib oo jiro waxay tahay gurigaas haddiiba booliis la geeyo ilmahaas waa la dilaa soo gabadhi maysa dhihin marka ilmahan waaba dishiina naldhaa anaga kariima kaal camalay naga dhigeen xatii liiska waxa noogu cunugaanaaba ka dareemay inaa kariima kaal ay naga dhigeen waxayba dhaheen xaguu cunugan ku dhalan doonaa markaasaan ku iri oo waay maxaa ka galay aabihiisi anaa joognay maya nigulama aamini kara adinka sidii annaga dilaabayba naga soo qaadeenba dad kale oo waddanka idinkaga horreeyey oo ama luuqadana idinka badiya waddankana idinka horreeyey sharciga waddankana yaqaana oo Soomaaliya ma la tashateen haa oo aniga waxaan haystaa imaamka waddanka Sweden Qeyralaasi Sheekh Xuseen wiil kale oo wakiil ah Cabdirashiid oo siyaasiya looyaro saddexa meesha aan joogo iyo meesha ay joogaan ayaaba waxa u kala dhaxeeyo kaas iyo kala dheeri magaalada degan tahay racan faado magaalada degan tahay magaalo la dhaho
saanfiirkan tuulo la dhahan deganay laakiin waxay hoos tagtaa yaaflaboori yaaflay hoos tagtaa yaaflaboori waa gartay marka laga reebo ilmahaas hadda kaa maqan booliskii ama hay-adaha sirdoonka ama dad kaleeto adiga hadda ku raadinaya ama kuu yimaada ama ku waraystaa ma jiraan may annaka booliis ma noo imaanin waayo booliiska waxay dhaheen wax caddeena way noo soo qoreen warqadaha booliiska kuwa haysanaa waxay dhaheen wax diirjila ama dila korkooda ilmahan kuma aragno ama gabadha tagtayoo habeenkii ama kuwaan la qaatay way wareysteen marka waxaa ka mid a booliiska hadalkoodii ilmuhu inay kala hadal badan ku hadleen waa gartay aad baad u mahadsan tahay qof kasta oo aqoon-yahana dad fara badan oo aqoon-yahana oo haddana daawanayaan ujeedaa oo gabadhaas caawin kara fadlan ila soo xiriir waddankaa rabta joog magaalada rabta joog laakiin qofka ila soo xiriiraya waa inuu noqdo qof arrimahan yaqaana wax ka qaban kara na tilmaami kara caawin kara gabadhan dadka kale 2,000 kor u dhaafaya ee halkan ku jira iyagana waxaan ka codsanayaa inaad u ducaysaan niyadda u dhistaan ilaahay aad u barisaan maalmihii khayrka ayaan ku jirnaa insha allah biidnillahi kariim marka waa inaan u ducayno sida sheekh axmed nuur imaamkeenu uu ugu duceeyey allah idin xafido fadlan aan u wada ducayno faaduma marka ummadda soomaaliyeed daalab adduunkao dhan joogta maxaad weydiisanaysaa hal masalo ayaa jirto oo qofku markuu yacni dhibtoodo muslimka ah hal wado oo yacni uuna yiri rasuulkani salaatu calayhi mara in aan halkan ka hajirno annagoo caafimaad qabno degmadan aan degannahay afar caawa maadaama ay 39 si xaquuqdii ilmahaygii hore aan u helo si cunugayga ilaahay iigu badbaadiyo in aan meeshan ka guurno cadaaladii ma taalo oo waa la'nahay waxna yacni na respect gareeyo oo cadaaladeenina tuso waxna leh qaladkaana leedihiin ama qaladkaan ma leedihiin waa la'nahay isku kaysoo dara faatixada intaasaan codsanayaa in meeshii aan ku dhibtoodo aan ka hajiro oo qolkii rasuulka salaatu calayhi aan raacno adinkoo calool fiyow aamiinta iigu dara in annakoo ogeen ilaahay boqorka ah ducadiina malaa'iga qaasa guri degdega iyo noolal kaloo degdega aan ka helno meelaan meeshaan ahayn amiin niyadaada khayr allah kuugu daro allahna kuu fududeeyo hooyooyinka soomaaliyeed ee ilmaha badan haysta odag iyo habartii ay iskhilaafsan yihiin adigu maasha allah famil qurxoon aabbiyo hooyo israacsan ayaad haysataa maxaad kula talinaysaa iyaga anigu waxaan leeyahay faadimo buraanbur maxay ahayto janal ayaan leeyahay waan dhaartay dad badanaa xatii qaarkood ku dhahay maa cabsatid waan dhaartay waxaan u dhaartay go'aanan gaaray ilaahay xaggiis waxaan arko inaan oo xaqdarraa ka hadlo halay xira haddii la doono god aan la galo laakiin anigoo runta sheegayo oo ama ilmahayga difaacaya ama ilmaha kale difaacaya inaan dhinto ayaan go'aan ku gaaray cid aan ilaahay ahna kama cabsanayo waan sheegay janalaan u furtay aboowe oo janal ayaan leeyahay oo halkaas ayaan ku nafisaa maadaama aan qof caan dhibaato badan ayaana soo gaartay anigii xaajigayga dhibaato aad u weyn ayaa nooga timi dadkii qof qaar wuxuu leeyahay aroos intay taagneeda ilmihii laga qaatay qaar wuxuu leeyahay ilmaha kale ka jaan waa yacni dhibaato weyn marka ay soo gaartay ayaan dadkii kasoo dhex baxay aroosyadii iska stop gareeyay aan youtube-kaas galay inaan ku nafiso marka halkaasaan ka wacyigeliyaa waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursaddan maadaama adiga aa maraykanka joogto jasaakallah khayr adiga shiiqiba walaashay niciima u hambalyeena waxaan ku leeyahay alxamdulilaahda badi istaaqfurlayska badi ilaahay u shukri waan duceeyey hadda ka horna waa uga hadlay youtube-kayga reer maraykan ayakorna waxaan ku ammaanayaa inay yihiin dad isku duuban oo daqli iyo xoog iyo dhaqaalo iyo dheef wadaago inay yihiin ayaan horta ogahay maasha allah ay garab siiyeen abbaayo waad iga nasiib badan tahay allah kuu zaa'idiyo waayo dad ku maqlaayo gaalo ku maqlaysa ayaad la joogtaa ilmahaadii ayaa lagugu dhiibay ehelo ama dad islaama aniga waa la ii diiday in ehelkayga buuxa la iigu qoro aniga waa la ii diiday in dad islaama la iigu geeyo cadaab ayay ku jiraan ilaahay cadaabta ha ka soo furo amiin allahuma amiin waa mahadsan tahay shukran jasaakallah khayr
dadkuna waxaa leeyahay waa mahadsantihiin sidaa noo dhiiragelinaysaan aniga walaalkayba maasha allah brambur faadumo brambur ayaa magacaaga raacsan maxay kuugu baxda brambur waa buraanburi jiray waana buraanburaa aroosyadaana ka buraanburaa sidaan kuu sheegay cadowgan hadda ilmahaaga haysta ma u baraanburtay youtube aan baleeyahay ani haa xatii wixii igu dhacay ma nooga sheegi kartaa haddaad wax ka tirisay walaahi mid waxaa jira aad calaacal u ah inaan mar kale aan isla fadhiisano oo aan kuu sheega ka qurux badan waad mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay thank you aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad isleedahay waa ka tagnay oo aad ku darayso maya ummadda waxaa leeyahay meel kastay joogaan wax u miciina gaal iyo muslim hortooda allah dhigo maasha allah aad baad u mahadsan tahay faadumo walaalayaal 2,000 iyo jarjar ayaana daawanaysa ilaahay fadligiis bilihii khayrka badnaa ayaan ku jirnaa dad baan weli afurin dad baa biyihii qaboobaa hadda ag yaalaan iyo timirtii oo raba inay afuraan kuwa hadda mar dhow suxuurtay kuwa saacado maaragtay anigu hadda 11:48 maalmeed ayaan joogaa 2,000 xataa la ima gaarin walaalayaal aan u duceyno aamiinta aan u badinno ilaahay maaragtay fadligiis waxaan idinku weydiisanayaa qof kasta markuu maanta afuro ama suxuuranayo ama salaada ugu horeyso aad tukato inaad faadumo u duceyso iyo guud ahaan ilmaha Soomaaliyeed oo la haysto oo dhan in ilaahay maaragtay gacanteena ku soo celiyo faadumo waxaan rajeynayaa wareysi kale isla maanta inaad Sheekh Axmed Nuur la geli doonto insha Allah biidnillaahi kariim imaamka masjidkeena barakaysan Dr. Sheekh Axmed Nuur waxaan rajeynayaa ilaahay inuu ducadiisa aqbalo waa nin ahlu bayt ah waa nin ahlu sharaf ah waa nin qalbi wanaagsan maaragtay ducadiisana runtii dad badan uu duceeyay waxaan arkay ilaahay wuu ka aqbalay marka waxaan rajeynayaa insha Allah waxaan ku rajo weynahay in ilaahay ilmahaaga uu gacantaada soo gelin doono ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siin doono ilmahaaga ayaan annaga dhan rabbi kugu weydiinaynaa rabbi subxaanahu wa tacaala ilmahaaga gacantaada ha ku soo celiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qoyskaas qurxoon ilaahay maaragtay ku siiyey maaragtay ha kuu barakeeyo ilmahaagina dib ha kugu soo celiyo dembigaagana allah ku dhaafo sabirkaaga runtii aad baad u sabir badan tahay gabar faraxsan qoslaysa ilaahay ku xiran ayaa tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cimrigaagana ha dheereeyo awlaadaadana rabbi subxaanahu wa tacaala dib ha kugu soo celiyo aad baad u mahadsan tahay sharaf ayay ii tahay faadumo brambur oo Sweden joogta iyo Axmed Ida Waqaca oo Salt Lake City jooga oo idin leh